madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa safiirka dalka Ingiriiska waxa uu kula kulmay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. kulanka dhaxmaray madaxweynaha iyo safiirka ayaa waxa looga wada hadlay xaaladda guud ee dalka doorashada 2020 waxaana sidoo kale safiirka Ingiriiska u jooga Soomaaliya uu ku garab istaagay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu sheegay in muhiim ay tahay in dawladda federaalka Soomaaliya wada hadal ay la gasho maamulka Jubbaland oo hogaamiyo. waxaa sidoo kale la isla soo qaaday arrimo la xiriira dawladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada ay ka wado gobolka Gedo ee Jubbaland. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in nooca doorashada 2020 loo baahan yahay inay noqoto mid dastuur ka waafaqsan isla markaasina qof iyo cod ku dhacda walaaciyuna ka muujiyay in arintaasi aysan u hoggaansamaynin madaxda filla Soomaaliya oo daacad aysan ka ahayn in doorasho dalka lagu qabto. safiirka dawladda Ingiriiska waxa uu muhiimad xoogan ku tilmaamay in la xoojiyo xiriirka wada shaqeyneed ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay in muhiim ay tahay in Axmed Madoobe wada hadallo uu la yeesho madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya si meesha looga saaro dhaqdhaqaaqa ama xasaradaha siyaasadeed ee labada dhinac u dhaxeeya. arintani hadalka safiirka waxay banaanka soo dhigaysaa xogo hoose oo tibaaxaya in dawladda Ingiriiska, Mareykanka, Kenya iyo kuwa kale ay aad u garab taagan yihiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isagu sheegay inuu yahay hogaamiyaha Jubbaland mar kalena lagu doortay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland. waxaa sidoo kale arintan si weyn kaga carooday madaxda filla Soomaaliya waxaana la sheegay in ay yihiin mid si weyn ay kaga fakirayaan tilaabada xigta ay qaadi doonaan maadaama ay tahay tilaabo dawladda Ingiriiska ay ku cadeysatay mowqifkeeda arrimaha khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe uu hogaamiyay sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa kulamo kala duwan halkaasi kula yeelanaya safiiro, diblomaasiyiin iyo sidoo kale xubno mug iyo miisaan kula siyaasadda Soomaaliya. waxa uu kulan kula qaatay horay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya gudoomiyaha ururka ONLF oo loo aqoonsaday xisbi siyaasadeed ka diiwaan gashan dawladda Itoobiya halkaasi oo la sheegay in si weyn gudoomiyaha uu taageeray arrimaha Axmed Madoobe isla markaasina uu ganafka ku dhuftay rabitaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wado Jubbaland iyo sidoo kale gobolka Gedo ay doonayso inay ku soo dhiso maamul ka madax banaan maamulka Jubbaland oo lagu majaxaabinayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. dawladda Kenya ayuu sidoo kale heshiisyo culculus la galay Axmed Madoobe kuwaas oo ay ka mid tahay in rabitaankeedu uu uga fulin doono gobolka Jubbada Hoose oo ay ku taalo magaalada madaxda ku meel gaarka ee Jubbaland oo Kismaayo xiriir dhowna ay kala yihiin Soomaaliya iyo Kenya. waxaana taasi ay sababatay in ammaanka madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan si dhow ay ula wareegto ciidamada dawladda Kenya isla markaasina ciidamo badan oo Kenyan la soo dhoobo xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya kuwaasi oo la sheegay in intooda badan ay ku soo wajahan yihiin gobolka Gedo oo sidoo kale ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda Itoobiya. waxaana laga cabsi qabaa in halkaasi dagaal ay ku dhaxmaraan ciidamada dawladda Itoobiya oo taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya doonayaan rabitaanka madaxweyne Farmaajo inay ka fuliyaan gobolka Gedo iyo guud ahaan Jubbaland iyo kuwa Kenya oo iyaka daacad u ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.